بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. إلهي سبحانه وتعالى والله خالق كون كان أبوري أرزقينا مخلوق كونك كنول أردن. إلهي والله سماوات كسر أقاذي تير لآن أرلذ ققلي بورها ندل صاري. رب سبحانه وتعالى أصغر رب إني مخلوقات كبرتان عدم ديسة أوديسة جريتان كيسة إيا وحدانية ديسة أيو كتاب كيسة منزل كاكويري dadku may fiiriyaan geela sida loo qalqay, samaawaadka sida loo kor qaaday, arlada sida loo goglay, buurahana loogu taagay. taasi waxay tilmaamaysaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awoodiisa iyo cadamadiisa. sidaa darteed ayaa rabbi wax badan wuxuu ku tilmaamay dadka fakera, dadka ulul albaabka ah. أولو الألباب يهين الذين يذكرون الله وكو إلهي حصى أيقو تاغن فردي يجيفنا وعيك فكران سماوات كي أرلض أبور كوذا ورهذو دون وحيتها ربنا ما خلقت هذا باطلا. إلهي كان عيار أما أبور، إلهي كان باطل أما أبور أذيقان الزهن oo ceeb iyo nusqaan aan lahayn ee faqina cadaab an-nar, naarta cadaabkeeda ilaahayow naga badbaadi. rabbi subxaanahu wa tacaala mar alla markuu arlada khalqay wuxuu noo abuuray ayadoo islaaxsan, ayadoo nadiif ah, ayadoo wanaagsan. waxaana naloo diiday inaan arlada fasahaadino. ilaahay wuxuu yidhi: walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. arladaha fasahaadinina, arladaha halaynina, arladaha wasaqaynina islaaxeeda kadib. war ilaahayaa wanaajin laydinkama rabo ee ha ku cayaarina, ha wasaqaynina, fasaadna ha ku dhex samaynina. walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa, islaaxinteeda kadib ha xumaynina. war arladaha halayninoo ha wasaqaynina. rabbi xikmadiisu waxay keentay mar allaala markuu rabay inuu aadam khalqo inuu ilaahay malaa'igta u bandhigay subxaanahu wa tacaala. malaa'igta ayuu ku yidhi: innii jaacilun fi lardi khaliifa. malaa'igay ogaada, arlada khaliif ayaan rabaa inaan ku sameeyo, dad isbedela ayaan rabaa inaan ku khalqo. aadam baa la rabay in la khalqo. innii jaacilun fi lardi khaliifa. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. إلهي يو أرلض ما وحدكو أبو ريسا وحفس هذينايا وح أرلضي هلينا يميد ربي يو أبو ريسا ربو هنغو خلق إسكدا سببتو وعيته ما وحدكو أبو ريسا من يفسد فيها ويسفك الدماء. ديقنكو داذينايا ويسدلايا ديق بيقوبي دونا أرلضي فسهاذين دونا. إلهي أتجعل فيها من يفسد فيها أو يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله أنك كظاهرين، أنك كوفين دقيقتنا كعاسيني ولكن كو شريك يلي مينو معاسي سمين مينو إلى الرب باكو قلقي سبحانه وتعالى. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. الله وكظاهرين annagaa ku nadiifinayna 24 saac, saacad walba, daqiiqad walba ilaahay bay caabudaan, rabbi bay nazahaan, allay u tasbiixsadaan. yusabbixuuna alleyla waannahaar
habeen iyo maalin laa yas'amuun mana noogan buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. rabbiyow bani aadamka arladay hallayn doonaan. rabbow ma waxaad nagu abuuraysaa wax dhiig qubaaya. rabbiyow ma waxaad nagu abuuraysaa wax arlada fasahaadinaaya. xumaan bay ku samayn doonaan, dhiigay ku daadin doonaan, nudfo iyo shahwo xaaraan bay ku qubi doonaan, gobolkood baa gobolka kala dili doona, sariqo iyo tuuganimaa lagu samayn doonaa. sidaa darteed ayay tilmaameen in layska daayo, waayo ayagaa diyaar u ah inay rabbi hufaan, rabbi tahiraan, alla nasahaan, ilaahayna ay weyneeyaan subxaana wa tacaala. sidii waad u jeedaan walaalayaal, waxaa xikmadda raxmaanku ay keentay in la khalqo. waxaa wax badan ka qarsoonaaday ilaahay xikmaddiisa subxaana wa tacaala. mar allaala markay dhaheen wayasfiku dimaa wanaxnu nusabbixu bixamdik wanuqadisu lak qaala innii aclamu maa laa taclamuun. waxaadan ogeyn baan ogahay buu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. qiso dheer bay ahayd, laakiin waxaan ula jeednaa fasahaadka iyo xumaanta in arlada laga ilaaliyo. rabbi arladan waa hagaajiyey walaalayaal, waa nadiifiyey. qof looga baahan yahay inuu dib u islaaxiyo ma jirto. waxaana la ka rabaa keliya inaan alle ku caabudno, inaan xumaanta ka dayno, inaan waxaasida iyo wuxuu rabbi naga reebay arlada aad looga ilaaliyo. qolabaa sheegta ayagu inay arlada islaaxinayaan, laakiin ay yihiin dad fasahaadinaya, khaasatan munaafiqiinta. mar allaala markuu rabbi tilmaamayay subxaana wa tacaala, wuxuu noo tilmaamay waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi, haddii la dhaho arlada ha fasahaadinina, war dhulkan ha xumaynina, war alle ku caabuda, munaafiqnimada ka daaya, war shirkiga iyo wuxuu rabbi diiday ka hufa, war macaasida iyo wuxuu rabbi reebay ka daaya. waidaa qiila lahum laa tufsiduu fi lardi qaaluu inamaa naxnu muslixuun, waan islaaxinaa bay leeyihiin. arladaan hagaajinaa, arladaan hufnaa, ummadaan hanuuninaa, xaqii wanaaggaan ugu wacnaa. waxay ugu wacayaan waa riwaayad iyo filin. waxay ugu wacayaan waa wax xumaan iyo waxaan rabbi raali ka ahayn. saa darteed bay leeyihiin annagu waxaan nahay kuwii muslixiin ahoo ilaalinaya. alaa inahum hum lmufsiduun, waa mufsidiin buu dhaha ilaah subxaana wa tacaala. ileen arladan islaaxinaynaa ma looga baahnayn inay islaaxiyaan. rabbi baa islaaxsaday oo hagaajiyey. sidaa darteed ayuu rabbi subxaana wa tacaala na amray keliya inaanan fasahaadinin. walaalayaal, waad u jeedaan fasahaadka meeshuu maraayo. waan u jeednaa magaalada iyo suuqa. waan u jeednaa meel allaala meeshaad marta fasahaadka meeshuu maraayo. waa kaasa oo dumarkii ayagoo dharla bay fasahaadiyeen. waa kaasa oo qaadcunayaalkii halkaasay fadhiyaan. masaajidkaa loogu wacaa tarmuus iyo sigaar iyo gabara meesha u taagan iyo mijinjaad ah. waan u jeednaa dhallinyaradii heerkay taagan yihiin maanta. fasahaadka aan ka soo noqono. war fasahaadku wax wanaagsan ma aha. fasahaadku waa wax aad iyo aad u xun. waa in wax allaala wixii islaaxa lid ku ah aad markaa samayso. salaad la'aantu waa fasahaad. ummadoo la laayaa waa fasahaad. xumaanta iyo zinadoo la gala waa fasahaad. ilaahay oo loo shariig yeelaa waa fasahaad. saa darteed baa caalamka waxa soo maray sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala, nin loo jeeda inuu mufsid yahay, inuu rabbi subxaana wa tacaala ka soo horjeedo, heer uu gaaray inuu yidhaahdo ana rabbukum alaclaa, inuu nebi muuse ku tilmaamay inuu fasaad wado. waqaala fircawnu daruunii aqatul muusa, fircoon wuxuu yidhi iga leexda aan muuse dile. muxuu rabaa inuu nebi muuse dilo? sababtu maxay tahay? in loo yimid baa layidhi fircoonow rabbigaa rumeey, war adi ilaahay ma tihida rabbigaa caabud, war fasahaadkii xumaanta jooji. fircoonow ma kuu sugan tahay ilaa an tazakkaa wa ahdiyaka ilaa rabbika fatakhshaa? saasaa loo waaniyey. asagoo saa loo waaniyey buu leeyahay daruunii, war iga leexda aan muuse dile. daruunii aqtul muusa walyadcu rabbah, rabbigii ha caabudo ha u yeertaba. innii akhaafu an yubaddila diinakum, waxaan ka cabsanayaa inuu diinka idinka bedelo. diinka laga bedelaya fircoona ilaah buu la jeedaa. diinka uu rabo in lagu socdo waa in fircoon la caabudaa. ka warrama walaalayaal, xaaladaasaa adduunka soo martay. war wax badan aan noqono dad iska gaara.
والفسهات كقف والبوجوجي وردنع كاستقف والبو أنك نقمذا دنع أيو فسهات كوضا أن إلهي أسر رجوعنا إلهي لا يحب المفسدين مجعل دتك مفسدين تاء وردتك وحفس هذه إلهي مجعل إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إنه فساد أدونك كعممو أيان كعبسنا يبوليهي وإن إلهي لقو عابد سبحانه وتعالى فسادكم مركات المامايو دادا بناجنت أرك إن أدونك حمان لقو سميايو dhaqankii taqadumkii horumarka dada u arka in wax alla wuxuu doono sameeyo fisqigu doono uu ku dhexdhaco salaada uu roon uu doono inuu ka tago dada xaalada u arka wanaagii islaaxa dada fasahaadka u arka sunnada nabiga lagu dhaqmo dada u arka masaajidada Allah la soo galo dada u arka xumaanto laga sariigto inay fasahaad tahay odayga fiiriyo wuxuu ku hadlaayo Muuse waxaan ka cabsanayaa inni akhafu an yubaddila diinakum أو أن يظهر في الأرض الفساد أما إنو أدونك فسهاد كوضو وحبضا ولا لي الأنطاع ألا كدذالنا فسهاد كي ما أنت واتر بطي أدون كي ما أنت وعور نقضي من آذيات فسهاد كي سأبطا وارقف والبا أجعل إنو إلهي خير سيء وارقف والبا أجعل إنو إلهي أكتي سهر مركو جارو وارقف والبا أجعل إن جنة إلهي سي سبحانه وتعالى وإنو فسهادك إسكا إلاليا وإنو فسهادك إسكا دايا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا دارتا آخرة دور غوريغا جنة بلركيدا سماواتكي أرلدا أي لا أكتهي وحان أغو تلقلني أو لسيي أو إلهي أغو تلقل سبحانه وتعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض داد كان إسكرقاد أدون ربين دادان إني إسكرقادان آن أباهنين دادان إني كبران آن أباهنين قبيل بان أباهنين إنو كوري وحيابك لنغضو داد كان نوع عسان أغو تلقلني سيد إلهي تلماما يولي سبحانه وتعالى للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا فسادنا عن مركان ربين وادد مصلحين وحي أمضها الليان بيها جاجيان طاعة اللي كدذالان هبين يا مالين بيكو فكران محا ربي الرالي إذين كغن نقضا إنا حالدا كسعنا والله قم مارمان ولا ليال فسهادكو أدبو دبذين يهي ربي أكتيس خير إيواناك لوغا مجارو حولها فرها بضن إن بضن أو كمذا لغو فسهادا فرعون قارون فيرنك لغو مقعابو إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين حولها أنسين إسكدا مخازين ذا فروينك الله غفره انتنا ميشا كجرتا حدان إسوتقنا لما قاضي كاره هيركاسا إلهي قارسيا سبحانه وتعالى هل بقاربان ما أنتكو كبرينا هل قاربا ما أنت لغو كبريا وحان وحاهم بيضان مدكور إسوغو قاضان في ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين آخرا لحسوسي فسادك جوجي باليري وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة وروحوا إليك سيدارت آخرة كراتسو ولا تبغي ورها ضلب فساد أرلضها كصمين إلهي مجعل لدتك فساد كوضا والمفسدين إلهي مجعل سبحانه وتعالى ولا ليال أن نقون أمد إلهي أتوبك أنت سان كسعنا هدين لجودين وايو حالة أن ما أنت كسعنا فسادك هذا ربي أغتوبكيني وينو ربي سبحانه وتعالى إنو نعقابي أدو ذاي ربي سبحانه وتعالى إن عذابك صنع عميمي أدوانيسا وحبضا ولا ليال هل سور رجوعه قف كستأو فسهاد وضع سيدي آير أهو ترتيبها الله قريبو قف والبان نفسديسها كفكرو عالمكي إيا مقالذي إيا ميل كستون مرنو نانت فسهادك أدبو عميم سيهي كي وينا إيا كي يرى رقي إيا الضمركي ضمان أيا وحال النقضي وح إلهي الدين تيسك وضلحا إن يرأى ربي أنحريستي ماهاني سبحانه وتعالى باعي وفسهاد جد مركيني وفسهاد دمركي وفسهاد قوركي وفسهاد وحول بانكسعنا فسهاد أيو ما أنت مركان نقضي فسهاد كهدان لغا صون نقون إبا تبضن أيا إيمانيسا
mashaakil fara badan ayaa imaanaya dahab la waa oo dollar la waa oo diinaar la waa oo dirham la waa oo dumar la waa sababtu maxay tahay dhahara alfasaadu fi lbari walbaxr bima kasabat aydi annaas waa waxaan gacmaheena ku kasbanay وبما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا انت محانا لوغو سمينيا دب كان محو نو هيستا وحير بان لددنسينيا إن يربو ربا إنو إلهي نددنسيو أو أندرينو دبك يا مشاكلك وحقو يهي عذابك آقرة إنو كعلوس يهي دبا تفر بدن باجرتي ربدي الله صلابتو وروح بدن باجري إلهي أن أصر رجوعنا وروح بدن بان نغا قلدن إلهي أن أصر رجوعنا سبحانه وتعالى قبله دأذا يرى اسكدا وحكالي اي قريها النوجوغي يا فسهات كهيرك اي قارسيين اي ميشي مريان لفهم سيهي دباطل اي هيان مشاكل كفرها بضن وسدح يتبنجر والله بقى يتبنجر وافر يتبنجر وسديد يتبنجر وتجدان مقالة سيدة اي تهي ولا ليال قبل النوع عسال هليا قبل حالة دودو اي صات هاجرة جينيسكا اي فناندة بعبي اجرتا حجابك إن الشريرك عن قيمة اللهين آدي لو حميي أي دمركو قبلها قبل كمدأة أي أقوم قعدرين وآبائك قري كاسا انتي كرة عن تكسيغا إلا لغا قار ميشي كتو منيان يا دركي قذال لغو بدليا دمان والله صعنا ولا ليان وحنا قرصون معها دبات مقالة جرتا حدث ولا حرج ويا دبات آدي أدوين باصعتا مشاكل بدن باجرة مرك قبل كميدة صلاة الصبح مركان أصعنات أركيسا أيقو تكسيك كسو دقايا ميل أي أفكا آديان ميقانان قرقوذا ميقانان ميل أي أصعة متقانو مرنصاصي أدعضا مرنصاصي أدعيسا وقبر مسلمات وأمة محمد سيشيغانيسو وصومالي ولا ليال وحنو دي من معيين وحكى للسوق يا محيتهاي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس حالة سالة دحنو ليهاي ما أنت ميشا سانكو دحسوغنهاي حالة ما أنت أمدو كجيران إلهي سبحانه وتعالى نحريس تيسا هديس النهليلين هديس النقسو قارين لباتدو آدي أدبي أبضانتهاي فساد كي ما أنت وحور نقضي وحوناكسن وناقي ما أنت وحور نقضي وحفسهاد خير كي ما أنت وحور نقضي الشر شرطي وحي نقطي خير حالة نوعاس أمت هدي قارتنا وميشا أقدم بيسا لباتد فرها بضن أي أمدي كاسو قارتو هذا وفسادك ولا لياسان اوغا هرتقي لهين سان نفتينا اوغا تربيي لهين سان بلشدينا اوغا وعي قليل لهين آدي آدان اوغا فأقو دذالنو هل كاسو فديا ميجين قابو وطا باك السيجار با أطالة حي على السلاح حي على الفلاح بمؤدن كلية ولي مسوكعين والله أقيمي ولي وافديا عددكي مصلين تا استاغي والله أقيمي dadkii tukanayay ee rabbigood hortaagnaa orahdoodu waa iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin orahdiisu majinta ii soo qaba waaye dadkii tukanayay orahdoodu ihdina as-siraata al-mustaqiim bay leeyihiin waxa uu ku hadlaya waa waxaan meesha ka sheegi karin waxa uu tilmaamaya waa waxaan afkeena soo mari karin wax badan fasahaadka aan fiirino war haddaan fasahaad la iska ilaalin dhibaato badan baa imaanaysa haddaan fasahaadka aad la isaga ilaalinin dhibaatadu aad bay u badnaanaysaa ilaahayna ummad noocaasa wuu ciqaaba ilaahay ummad noocaasa uma naxariisto ilaahay subxaana wa tacaala wax badan ayuu xilmi leeyahay wax badan baana loo dulqaatay waxa aan ku fadhina meesha oo aan ku soo joogno oon magaalada ku joogno waa xilmi allah subxaana wa tacaala laakiin fasahaadkeena haddii la fiiriyo wallaahi inuusan nagu jirin hal qofood oo mutaystay caawa inuu magaalada seexdo nabadna ku jifto laakiin xilmi ilaahiyaa lagu jooga dulqaad allaan ku joognaa dulqaad allaan ku noolnahay hadduu ilaahay dadka ku qaban lahaa waxay kasbadeen maa taraka calaa dahriha min daaba hal daabad adduunka laguma dhaafeen walaalayaal dhammaan waa isnaqaanaa war qof walboo taacada ilaahay ku soco dhallinyarta ilaahay subxaana wa tacaala u soo rujuuca war dhallinyaroy fasahaadka joojiya
war wax badan ilaahay ka xishooda war dhallinyaranimadu waa xilliga ugu da' wanaagsan waa nimco ilaahay dadka soo marsiiya subxaana wa tacaala cilmiyaa looga faa'iidaystaa camal saalixa looga faa'iidaystaa mustaqbalkiina adduunkaa looga faa'iidaystaa war xilli baa la gaari doonaa dhallinyaro aad gaari doontaan heer farta la qaniino oo aad dhihi doonto halaageeyo yaa gadaal iyo celiya tan aakhira intaan la gaarin rabbanaa akhirnaa intaan la gaarin rabbanaa akhrijnaa nacmal saalix intaan la gaarin ayaa adduunka lagu qoomamayn doonaa in allaala intaan wakhtigooda ka faa'iidaysaninna dhibaatadaasay la kulmi doonaan war maxaa faa'iidaa haddaad meelaha fadhiisato war maxaa faa'iidaa dumarka meeshaa maraya haddaad mar walba daawato war maxaa qiime iyo wanaagoo kaa soo gelaya sharafta iyo qiimaad yeelanaysa maxay tahay haddaad rabbigaa caabudi weyso war in badan u dhaxeeya meelaad ka shaqaysaan hadday shaqo jirto meelaha waxbarashada haddaad waxbarataan beydkii iyo gurigiina iyo beydka allah intaa wixii ka soo haro walaalayaal waa faa'iida daro war intaa wixii ka soo hara qiime iyo wanaag malaha war intaa wixii ka soo haray ilaahay ummadda wuu ku ciqaabayaa bacdamay xaaladdu saa tahay aan rabbi u soo laabano dhallinyaradu waxaan dhihi lahaa wax badan oo fursada ayaad dayacaysaan war fursadaha aad leedihiin nafteed wax ugu qaban kartaan war waalidkaad wax ugu tari kartaan war bulshadii ummaddaad wax ugu qaban kartaan waxaad ku dhammayseen in meel la fadhiisto waxaad ku dhammayseen in ciyaari waxyaabo kale la galo gobol ka mid ah ayaa maanta fasahaadka heerka uu gaarsiisan yahay ummadda musalliintaan beydka alla ka imaan karin nin kastaa mindii baagad buu wataa halkaasuu joogaa war ilaahay subxaana wa tacaala laga xishoon maayo miyaa dhallinyaro war ma ogidin miyaa in la sakaraadayo sakaraadka laysku xanuunjinaayo ma ogidin miyaa in adduunka karfal laydinkaga duubo ma ogidin miyaa in dhul mitira laydin dhigi doono war ma ogidin miyaa in meesha laydinkaga soo kala tegi doono war waa lagu weydiin doonaa dhallinyaronimadaada iyo waxaad ku baabi'isay waa lagu weydiin doonaa waxaad ku dhammaysay shabaabnimadaada waa lagu su'aali doonaa adigoon ka jawaabin inaadan lugaha saa u kala dhaqaajinayn rabbi agtiisa subxaana wa tacaala bacdamay xaaladdu saa tahay aad iyo aad u soo rujuuca war dhallinyarada baadiyaysanay ilaahay u soo laabta war dhallinyaro walboo cibaado alla ku barbaara diin alla ku barbaara khayr iyo wanaag ku barbaara raxmaanka harkiisa loo hariyaa maalin uusan hoos jirin ilaa hooska ilaahay maahane war yaa kuu maciinaya rabbi agtiisa war yaa wax kuu taraya alla agtiisa war yaa janno ilaahay ku gaarsiin kara alla agtiisa subxaana wa tacaala oo aan rabbi ahayn war ilaahay marka lagu horgeeyo oo lagu weydiiyo maxaad ku soo dhammaysay dhallinyaronimadaadii ma baagadii tooreydaad la soo bixi doontaa ma intii moobilaad qaadataad rabbi horkeyni doontaa war xaaladda noocaasa maxaa dhacay weji gabax baa dhici doona rabbi hortiisa marka la tago walow tara id ilmujrimuuna naakisuu ru'uusihim cinda rabbihim rabbanaa absarna وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ساسو إلهي تلمامي سبحانه وتعالى حداد أركي لهي حلق أي مجرمين دنبي لياشا مضح أي فوررينيان حقي لجوغا عند ربهم كابا قبيل هرتي سلام تاقنا ومر الله لمركا دب لقارة وحبي حنجري هو يأكتيذا لما جوغو ومر الله لمركا دب قارة دهب كبي حنجرتي أذير أكتي سلام جوغو ومر الله لمركو دب كسو قارة كوسو قرمنجري عالم ربي عالم كودن الله بربارية أكتي سان لسكو ظلمين قف كستا حقي سقاتاد هرتاقن تهي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم مضحي فوررينيان كرو مسوق هذه كران ويعيبي سيهين ويوجيق بحسيهين وحي سمين كران ملها أدونكي بفساد كو عميمين أدونكي بفساد كو لجيرين أدونكي بحليين أدونكي بحمان كو سميين أدونكي بوحكو دعين أدونكي بوحكو دلين أدونكي بالله كو عاسيين أدونكي بلباتا كو سميين سادرتد باكلفتي ناكسوا رؤوسهم حقي لتاقيا عند ربهم ورهدو ذو معيتاي ربنا rabbigeeniyo waan maqalnay waana aragnay jahannama qayladeedaan u jeednaa waan maqlaynaa jahannama kuleelka iyo waxa ka soo baxayaan dareemaynaa rabbanaa abasarnaa wa samicnaa maxay codsanayaan farjicnaa ilaahayowna celi ilaahu gadaal noo celi maxaa loo soo celinaa nacmal saalixan camal fiican baan samaynaynaa ileen haddaan yaqiinsanay maalintaa yaqiini wax ma tarto maalintaa yaqiini wax ma qabato maantay yaqiini wax tartaa
maantay fiican tahay, maantay nala gudboon tahay, maantay sharaf leedahay, maantaan ku badbaadi karnaa, maanta ilaahay cizi wanaag nagu siinaa subxaana wa tacaala. laakiin jahannamoo dhankan ka soo fafakanaysa, malaa'igtii oo silsilado dhudhunkooda 70 dhudhun oo dhudhunka malaga uu yahay nala gaaf wareegaya, jahannamoo dhambila iyo sharaar ka soo baxaya, rabbiyoo caroodo meeshaa caro uusan weligii caroon kadibna uusan caroon doonin caraysan. xaaladda noocaasi waxba qaban mayso, sida ilaahay tilmaamay wajii'a yowmaidin bijahannama yowmaidin yatadakkaru linsaan. jahannamaa la keenaa, meeshaa la soo dhigaya, waa la arkayaa, ummadiibay saa u wada daabanaya dhammaantood. maalintaasuu insaanku isxasuusanaa, wa annaa lahu dikraa. maxay taraysaa walaalayaal? dhallinyaro maanta waa xasuusta, war dhallinyaro maanta fasahaadka joojiya, war ilaahay wuxuu idiin qoro weyn maysaan, war ilaahay subxaana wa tacaala talada u dhiibta, war xaqa iyo taacada alla ku dadaala, war naftiina aad iyo aad u daneeya, war bulshada wax fiican u qabta oo wax u tara, war iska daaya waxa fasahaadka ee faraha badan ay markaa lagu jiro. aan ilaahay u soo laabana subxaana wa tacaala. fasaadada jira aad iyo aad bay u fara badan yihiin, fasaadada jira aad iyo aad bay u tiro badan yihiin walaalayaal. haddii beec la yidhaahda waxbaa lagu fasahaadiyaa, haddii guur la yidhaahda waxbaa lagu fasahaadinayaa, haddii sheeko caadi ay noqoto waxbaa lagu fasahaadinayaa. fasahaadka ayaana loogaga digayaa. ilaahayna uu leeyahay walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxihaa. war arlada ha fasahaadinina oo ha xumaynina islaaxinteeda kadib. wadacuuhu rabbigiinana tuuga oo rabbigiin barya, laba xalad idinkoo ku sugan, khawfan iyo wa tamacan. cabsiha kugu jirto, war qof cabsanaya arlada ma fasahaadiyo, war qof cabsanaya qof islaameed xoolihiisa kuma dhiirado, war qof cabsanaya qof kale dhiigiisa kuma dhiirado, war qof cabsanaya xumaan iyo macaasi kuma dhiirado, war qof cabsanaya zina iyo xumaan kuma dhiirado, war qof cabsanaya salaad ka tegitaan kuma dhiirado. wadacuuhu khawfan wa tamaca. ina raxmat allah qariibun min almuxsiniin. haddaan muxsiniin ahaan layn waynoo dhowaan lahayd naxariista alla subxaana wa tacaala. laakiin saacadba saacadda ka dambaysa waxaan dareemaynaa inay naga durqaysa naxariista alle. saacadba saacadda ka dambaysay naga fogaataa. ilan beecayna waa qish iyo qiyaano, salaadeenna waa khushuuc la'aan, hadalkeenna waa been iyo kidbi, waxaan ku dhaqaaqayna waa wax ilaahay carageliya, wax allaala waxaan samaynayna waa wax shaytaan farxad geliya. naxariis alla saacadba saacadda ka dambaysa inay naga durqaysaad moodaa. laakiin ina raxmat allah qariibun min almuxsiniin. dadka muxsiniinta way u dhowdahay, naxariista alla aad bay ugu dhowdahay dadka muxsiniintae khayrka iyo wanaagga jecel. aan noqono ummad taacada alla ku dadaasha, war aan noqono ummad fasahaadka iska ilaalisa. aan iska ilaalina wax badan, fasahaad fara badan oo jira. aan iska ilaalina fasahaad fara badan oo magaalada dhexdeena aan ku dhex samayno. aan iska ilaalina wax fara badan oo ilaahay nooga caroonaya subxaana wa tacaala. aan samayna waxyaabo fara badan ilaahayna raalli nooga noqonaya subxaana wa tacaala. xaaladaasaa adduuniya aakhira lagu gaara, taasaa sharaf iyo horumar iyo mudnaan ilaahay ku siiya subxaana wa tacaala. wax badan baa ummadaha gobol ka mid ah waxay isku saacideen ay isugu kaalmeeyaan waxa fasahaadka in la sameeyo. fasahaad inuu dhaco oo ummaddu ay sameeyaan gabdho iyo wiilalba, dad baa laga yaabaa inay aad iyo aad ugu dadaalaan. matal iyo tusaale haddaan soo qaadano, gabdhaha ee suga ee waraaqooyinka dibadaha lagu aaday halkaa jooga, waxaa in badan aad arkaysaa waalidiintooda halkaa ka soo biila inay leeyihiin warqad baa kuu xaraysan, waxaa kuu xaraysan inaad dhoofto, ma kuu ogolin baa leeyahay inaad guursato. waa gabadhii guur bay gaartay, halkaasay joogtaa. maalinba maalinta ka dambaysa waxaa laga yaabaa waraaqooyinkeedii arrimooyinkeeda inay gadaal u sii dhacaan. $100 baa loo soo diraa, boqolkaasaa lagu gumaystaa. wiil allaala wiilkii ahludiin ah ee u taga ee dhaha guur baan kaaga baahanahay, waxay leedahay boqolkayga ha iga baasbixina, boqolkayga ha i aqoonsanin. sababtu maxay tahay? hadday guursato oo ay ku maqlaan oo ay mataqaanaa kii dhiibaayo boqolka ama adeer ha ahaado ama aabba ha ahaado ama walaal ha ahaado waa laga goosanayaa. maxaa la sameeyaa marka oo magaalada ka jira? gabadhii guur bay u baahan tahay,
waxay u baahan tahay wix allaala waxay ku shahwo gudan lahayd ilaahay subxaana wa tacaala xaaraantiisa inay gashana aad iyo aad bay uga sariiganaysaa. markaasaa laga yaabaa wiil kastoo u yimaada inay diido, lase laga yaaba hal arin inay kula heshiiso inuusanna uurna u yeelin, inuusan cidna loo sheegin, in mar allaala markii bannaankay u soo baxdo meelaha laysku arko magaaladay ka jirtaa. markaasaa gabdhaha da'dayr waxaad arkaysaan mid walba buug bay wadataa, waxay uga sheekaynaysaa inay baraafid dhigato, inay aadayso baraafid, oo guriga ay joogto waxay uga soo baxaysaa inay soo barato ingiriis A iyo B iyo C ma dhaaftaba. intaa wax ka badan buuggeeda kuma qorno markaad fiiriso. lee sababtu maxay tahay? waxa loo soo baxo oo ay rabto inay ku soo baxdo waa barnaamij noocaas ah. hadday wuxuu bannaanka dhigta boqolkiiba laga goosanayaa. in badan haddayna maqlahayn dad xaaladooda saa tahay, waxaan dhihi lahaa walaalayaal fasaadka jiray ka mid tahay, dhibaatooyinka ba'an ee magaaladeenna ka socday ka mid tahay. gabdhahana ha loo maciino, war meeshoo la geeyey haddii rabbi u qadara way tegi, haddii laga daayaasa kasii qiimo badnaan lahayd. aaway guurkeedii, aawa carruurtay dhali lahayd, aawa waxyaabihoo kale. gabar baa laga yaabaa 35 sano ku gaartay, warqad baal kuu xaraysan, isbaasar baa kuu xaraysan oo wuu ku imaan doonaa ee sug. mar allaala markay gabtay, wax allaala waxay wada ku dhali lahayd dhammaatay, raggii soo wada doontay dhammaan ee wada diiday, iyo taleefon u soo diray dheheen naa ku noqo meeshaa joogtay, waxaan ku hayna markaa ma lehe. dahara alfasaadu fi lbari waalbaxr bima kasabat aydi nnaas. walaalayaalow aad iyo aad aan caqli u yeelano, war rabbi aan u soo noqono subxaana wa tacaala. dumarku wax badan ha ku fakaraano si khayrka iyo wanaagga markaa loo heli lahaa. magaalada hadday marta gawar qaaban oo meesha ilaa subxaana wa tacaala amarkiisa ayadoo diidan, meeshaasaa guduud u marsan, waxay wadataa dhar shaytaanka xataa ka cuuda bulistaa. iska daa dadka ahludiinka ahaa, shaytaankiibaa la yaaban waxay wadato iyo qaabkay ku socoto. beyd allay soo hormaraysaa, masaajidka allay hormaraysaa, hadalkay ku hadlayso waa hadal aan la qiyaasi karin xumaantii qubxiga uu leeyahay. socodkeeda waa waxaan la qiyaasi karin. laba wiil baa laga yaabaa dhexda inay uga jirto, meeshaasay maraysaa. asagiina waxaad moodaa qiimaha uu isbadaayo, waxa uu ismoodo iyo waxaanba markaa la qiyaasi karin. laba gabdhoodoo taariku salaadiin ah, oon rabbigood aqoon, oon weligood sujuudin, xeed sida laysaga dahiro aan aqoon buu dhexda uga jiraa. qiime iyo wanaag buu ismoodaa, markaasaadan la hadli karin, oodan wax u sheegi karin. walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha. dhulkan yaan la halaynin walaalayaal. islaaxii ilaahay wanaajiyey kadib, war ilaahay yaa noo fiicnayay arladay aan ku caabudno. war ilaahay subxaana wa tacaala ayaa arlada noo ballaariyey. meeshaan haddaad ku caabudi weyso, ina ardii waasica buu yidhi fa iyaaya facbuduun. waraani igu caabudo, arladeeda waa waasice. meel allaala meeshaad tegi kartaan ka taga. xaaladahaasoo dhan ayaa rabbigeen subxaana wa tacaala na amraya. laakiin qofkii fasaad ku sameeya oo ilaahay arladiisa halleeya oo dhibaato iyo macaasi iyo waxyuu rabbi diiday ku camimaa, meesha celi doonta ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay jahannamo tahay subxaana wa tacaala. waayo dad baa jira sida ilaahay tilmaamay, wa min annaas, dadka waxaa ka mid ah man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya. hadalkiisa adduunka kugu cajab gelinaya, markuu hadlayo, markuu khudbaynayo, mar allaala markuu leeyahay ummaddan hanuuniyaa. saasay xaaladaydu tahay. munaafiqiinba ha ugu badnaadaane. wa min annaasi man yucjibuka qowluhu fi lxayaati addunya wayushhid allah cala ma fi qalbihi wahuwa aladu lkhisaam. haddana wuxuu markhaati ka dhiganayaa allah waxa qalbigiisa ku jira. waa midood u saaxiib ah. waida tawallaa sacaa fi lard liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasl wallahu laa yuxibu alfasaad. sida ilaahay tilmaamay subxaana wa tacaala. mar allaala markuu hadlaayo waa midood u saaxiib ah. haddii uu kaa tagu jeesto oo arlada uu ku socdo, arladuu fasahaadin buu dhaha ilah subxaana wa tacaala. liyufsida fiiha wayuhlika alxarha wannasl. beer baan ka fakanin, xayawaan baan ka fakan, bani aadam baan ka fakan, dumar baan ka fakan, wax dhibriyaan ka fakanin. liyuhli wuxuu u soconayaa asoo halaagaya nasliga iyo beeraha buu dhahay. wallahu laa yuxibu alfasaad. bal u tag oo ilaahay ka cabsadhanin noocaas ah. waida qiila lahu ittaqi llah, ilaahay ka cabsa haddii la dhaho, akhadat alciza, isla weyni baa qabata. dadka mufsidiinta ah ee fasahaadka wada, ee mar walba adduunka macaasi xumaan ku samaynaya, oo waxaan ilaahay raalli ka ahayn ku sameeya, ilaahay ka cabsaa dhibtaa.
ilaahay ka cabsa waxay uga necab yihiin ma jiro ilaahay ka cabsa ayay aad iyo aad ugu necab yihiin wa idha qila lahu ittaqi allah akhadatu al'izza isla weyni baa qabata buu dhahay subhanahu wa ta'ala muxuu iskala weeyaa ilaahay ka cabso muxuu diiday ilaahay ka cabso akhadatu al'izza وبالإثم ودنبك سببتيسا وفسهاتك سببتيسا ووحى حالة أوسميي إلهي سبحانه وتعالى وعوت المامي هذه حالة ديسو أيساتهاي أو إلهي كعبس أي علم ويسي محا علم كراه فحسبه جهنم كفلان بودا إله سبحانه وتعالى جهنم ميشا كسوغيسا جهنم ميشا أتاغن جهنم إلهي أغطى لك سبحانه وتعالى أو ربي فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد وحي بضيان فساد أدون كيف فساد كسميين أدون كيف فساد كعميمين أدون كيف فساد كجوجين وايين مركز إلهي فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك إلى وحو كشبي عذابك للنوع عذابك النوع إلى كشبي إن ربك لبالمرصاد إلهي نوال المرصاد الصاحب وعمر قل وأسوغيا وحما إلوبه ميشا سامركال لغو سوغي دونا إذن فحسبه جهنم كافي ساء أيو يري إلهي سبحانه وتعالى فسهاتك ولا ليال كهورتجيتان لغا هورتجا درتيد يا وح الله راه وح الله لوحي أنت واد هيسطو وصورة قال انت محل سمينا يا ان فسهاتك لجوجيه كليه ان فسهاتك ليسك إلاليو نينك لغو مغعاب ذي القرنين أدونك صاء مري سوء وريغايو أدونك أغو سعدي ربي وحو يري حتى إذا بلغ بين السدين إلا لمبو رد حدودا وجد وحو كهلي قوم لا يكادون يفقهون قولا وضديس أفقرن وايين وضد حق اللقديس كل بتوضين يوميشا مركا ولا كلمي بني آدمك وحيابها إلهي وكرامي وحاكمت لبقى فوتكست حتى ديس كل قد أهين سوء بيسكو فهمان على ديذو أيضا أي تهيبي دهين يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض دول نقف سهابيان way u soo dhacaan labada buuro dhicintay iga soo baxaan yey boob ku sameeyaan yey dilaan yey dumarka kufsadaan oo dib ku sameeyaan wax Allah la wixii dili kara waa dilaan wax Allah la wixii qaadan karaan way qaataan tay mutaqaana kufsan karaan way kufsadaan mufsiduna fil ardi fahal naj'alu laka kharjan an ku siinay dhaheen war xoolo aan ku siine yeel beenkeena iyo beenkooda saddan mar uu naga teed oo naga xir fasahaadka dhibaatada uu leeyahay war wax waan ku siinaynaa u jaray diyaar u yihiin in wax la bixiyo diyaar u yihiin war si kale hadaa weyna xataa lagu raadiyo way raadi ahashada ilaahay heer waxa la gaara qofku mar Allah la markuu gaari waayo oo lacagtiisa isticmaalo wuxuu gaara heer uu ku gaaru iibsado raadi ahashada ilaa subhanahu wa ta'ala wa minan nas man yashri nafsuhu ibtigaa'a mardati Allah راضي هاشد إلهي بدد إبسد أبو الله سبحانه وتعالى ويقطان هدي وحكلا وايان الشرومات ذهب أجري مركزو ربي إنو النبي قوتاقو واعليين أوي أديدين نبي قو رباء جعل يهي وحو رباء إنو أفك النبي نورك كصوب حيقاته وننسى حابئة وحو رباء هنونك النبي قو هايو إنو كدرقو وحو رباء هدايد النبي إنو كقيب قاله وحو رباء رسول كمعيقيس إنو نقضو إنديس إنو نبي كقبو بصد صلى الله عليه وسلم مركو وحونا النبي قتيس إنو كعنو مركو سعنا النبي قتيس إنو كسعضو مركو تكنا النبي قداشيس إنو كتكذو وكهر تاجيهن ويؤديديهن سعلوك بعض أهين حول ملهين مال بعض نوجك حقس بطي واضبحي سامية حولي كفكريان رسولك كفكريان صلى الله عليه وسلم ذهب بي كفكريان نبي النور كأفكي سكسو بعيو كفكريان وركو رمضان طمان إذن سيبو يري وح الله الله وحي حولا عن ليه هداد قاضتان كدبنا النبي إيديسان إنان آذو نصي هل كاسو أتلمامي أيوة فرحسن بي لطاقين أيوة فرحسن بي عرارين أدون كيكو فرحيان يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون مداني يقانان ذهبي يقانين دولاري يقانان واحد دون لقاتي يقانين رسولك يقانا صلى الله عليه وسلم إلهي وافجيي رسولك صلى الله عليه وسلم مر الله لمرقو أتقي محل لقو يري واد ربحضي واد فائدي قيمة قارتي شرفات قارتي ذهبكي حولي لقا قاطي ربح بالله قلت المامي أنا وما أنت صلاة كان وينو لكن حول بدنا سوق قلان أدبان أفرحنا لكن مالنتي وإحنا لك قدم وايو oo suuqa san u furno aan uga tagno qanda habeenkii la seexdaa
maalintay salaadi ka daahan bay qandan jireen kii salaada ka soo habsaamaa tacsiye loogu tagi jiray laakiin maanta anagu ma naqaano laga yaabo waqti salaad subax noogu dambeysay inaan aqoonin dadkeena gobol ka mid ah maba yaqaamda goormee kugu dambeysay salaad subax waxa laga yaabaa inuu dhaw wallahi ma xasuusto 3 bil baan u maleeyaa ama 2 iyo bar xaaladaas maanta la mara adduunana ku joognaa adduunkii waa urinay adduunkii waa halaynay war meel kasta qurun baa ka soo baxaya qof kasto meel xumaan ku sameeya ama sa wax ku sameeyo rabbi ku xusi waaya ka istaaga dameer bakhtiyo oo kaleedo halakeena maalinta qiyaamo war adduunkan aan urinay aan ka dhaafna walaalayaal war adduunkan naga sheeganay aan iska dhaafno war adduunkan xumaantii macaasida aan ku wadno aan ka tooba keenno ilaahina aan u soo laabano subxaana wa tacaala ya'juuj iyo ma'juuj mufsiduuna fi lardi fahal najcalu laka kharjan cala an tajcala baynana wa baynahum sadda noo samay bay dheen meel naga xir kuwaan naga xir bay dheen aan xoola ku siine muxuu yidhi qaala maa makkannii fiihi rabbii khayrun faaciinuunii biquwa war wixii ilaahay i siiyey oo nebinimo ah oo mtaqaanaa ah mulki oo ah sharaf oo ah iimaan oo ah wax allaala wixii khayroo rabbi loogu dhowaado ayaa ka khayr badan buu yidhi wax allaala waxaad rabtaan inaad isiisaan maa makkannii fiihi rabbii khayr faaciinuunii biquwa keliya xoog igu kaalmeeya war aawa dhallinyaradiini war soo istaaga ajcal baynakum wa baynahum radma xirid baan idin samaynayaa aatuunii zubar alxadiid mufsidiin baa la rabaa in jidka laga xiro mufsidiin baa la rabaa in albaabka laga xiro war dad wax dhaca oo wax dila oo wax booba oo wax xooga oon rabbi aqoon oo xumaan sameeyo oo ilaahay ka furtay yaa la rabaa ya'juuj iyo ma'juuj inuu teed u sameeyo inuu ka xiro meesha markaasuu dhahay ii keena zubar alxadiid waa ku dhex shubay ilaa bayna sadafayn uu gaarsiiyey afuufuu yidhi intuu geeray birihii uu dab ku shiday buu yidhi huriya ayadoo dhanba xataa idaa jacalahu naar قال آتوني أفرق عليه قطرا نحاسا كشبا يكين أبو يري مفسدين بالروين ميشا لغا حيرو واي أدون كي هلين يان كفسي بالجوجين واي حمان بالجوجين واي معاسي ألا لجوجين واي سادرتد وحو يري قطري أن كشبا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ما أبو ذكرا إني سوكران واي واسبي بحو ومار إيا متقانا برمارأة هذي دمعان إني سوكران ويدعيان وما استطاعوا له نقبا من سود ليلين كرام بويري إلهي سبحانه وتعالى فسادك يا قباطة يا مشاكلك ومضى أي هيان درتد يو سبب أقدق ذي القرنين إنه ما يشد المركا كشرو ولا ليال أن رغم أن نقونه ذات إلهي عابد سبحانه وتعالى وإن الله لإنتان عبادة إلهي هيسانه وأنهلينا ضد خير نوشيغا وأنهلينا ضد وحن وقلبنا ضهايا وأنهلينا ضد وحن واصحنا ضهايا والله خير بانكو جرنا maalin baa la gaari doonaa laba qofood wax isku sheegtay la weyn doono maalin baa la heli doonaa oo la gaari doonaa qof walba wixii maskaxdiisa uu ka helay uu sameyn doono zaman baa la gaari doonaa hadda wax dhiman ma jiree ummadda oo dhan sharoolayaal ay noqon doonaan war zaman baa la gaari doonaa dhibaato fara badan ay imaan doonto macruufka uu munkar noqon doono munkarkana uu macruuf noqon doono intaan heerkaa la gaarin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo kitaab iyo ummad xaqa noo sheegtay nagu dhex jiraan aadaan uga faa'iidaysano way rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu tilmaamay cilmiga in la weyn doono cilmigan laguma weynaayo dadkii yaqiinay oo qalbigooda laga bixiyo laakiin waxaa lagu weyn doonaa culimada qibdooshadooda culimada waxay u badan doonaan dhanka aakhiro culimada waxay u badan doonaan alla xaqi culimada la qibdoon doona oo la qaadi doona illa adduunka laga waayaa hal qof oo caalim ah ayuu yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa dhici doona ittakhadha an-nas dadku waxay sameeysan madax juhal oo jaahiliin ah su'aal baa la weydiinaya jawaab bay bixinayaan cilmi la'aan ummadina way dhumiyeen ayagina way dhumeen buu dhahay rasuulka sallallahu alayhi wasallam inta la gaar cilmiga iska barta khayrkii wanaaga aan ku dadaalno wixii alla سنو دوين كره أن كود ذالنا شرف إيا قيمة علمي لغو جارا ولي بمر الله لمرك لغو دقمي لغو سي عمل فلو كتاب الله أخرين يا أحاديث بالله أخرين يا أحاديث النبي الله أخرين يا مساجد كو كتو كان يا وابحيا شقه دو أدلا وحبي أهان لهيد ميشا سو استاكسي هي
meeshaasuu taagan yahay waa lagu aqimayaa waa soo noqonayaa waa tukanayaa rasuulka sallallahu alayhi wasallam ma idin tusiyaa buu yiri calaa maa yamxu allah bihi alkhataaya wuxuu ilaahay dembiyaalka ku tirtiro darajooyinkana uu ku kor qaado noo sheeg bay dheen rasuulkii ilaahayow nebigu wuxuu ugu jawaabay waa weysaqaadkoo lagu faajafaajoodo xils fiican loo weys qaato cinda almakaarih mar allaala marka makaarihdu ay jirto waa xilliga uu qofku kahanayo waa marka biyaha qabowgu qofku uu nacayo aad uu dhibayo inuusan xibinna markaa ka tegin inuusan meelna ka tegin saa darteed bay dhalinyaradu in badan caadaystaan haba u badnaadaane xalay waa junuub kulay qabowna waa jiray xagee qabow ka jiray xagee xaaladu intaas subax buu diidayaa intaas subax inuu u kaco diidayaa daraja lagu kor qaadaa isbaaqil wuduu cinda almakaarih rasuulku wuxuu dhahay sallallahu alayhi wasallam talaabada faraha badan ee masaajidka loo soo qaado iyo salaad lagu sugo salaad lagu sugo goormeen ugu dambeysay salaad banaan lagu sugan naqaana salaad fisqi lagu dhex sugan naqaana salaad xabad sigaar lagu sugan naqaana salaad gabar loo sheekeeya naqaana lagu sugo salaad waxaan naqaana xisaabtii maanta oo dhan saaka 6dii buu tagay dukaanka xisaabtuu galay 6dii buu ka soo baxay kista maqribkii cishaa u dambeeya u dhaxeeya intuu rabbi u dhawaan lahaa rabbi u tasbiixsan lahaa ilaahay baryi lahaa tii haddana ku sii laabanaya war ilaahay agtiisa wax yaala khayr badan qul ma inda allahi khayrun min allahi wa min at-tijara xoolihiina waan u jeednaa saan gacanta ugu dhigaynay oo u raadinaynay inay naga fagtaan meehe wax laga dhargaayay wax la soo kasbayaan jirin xoolahan aad u jeedaan zaman baa la gaari doonaa ayadoo dahab oo aad dambiil ku wado yaad albaab garaaci doontaa ood leedahay sadaqaan wadaa ma iga qaadanaysaan albaabka laga soo xiranaa tayna meel ula anay naga wad baa lagu leeyahay xilligaas la gaari doonaa waa xoolaha maanta aad u malaysaan inay qiimi wanaag leeyihiin waxa maanta aan salaada uga tagnay oo aan diinta alla u qaadan weynay oo xaraan aan u raadinay qof kasta suux ku heli lahaa buu ku raadiyaa laakiin raadiyaash ilaahay lama raadiyo say gacantaadu ku soo gashaa waayo maanta wax niyadeena ku jiree say ilaahay raali ku noqdaa ma aha say ilaahay raali ku noqda haday ahaan lahayd waa la noo nimcayn lahaa dhacana la ka joojin lahaa mashaakilkaana la ka dhaafi lahaa khayrkii wanaaga alla nagu camimi lahaa subxaana wa tacaala laakiin markaan ka caragelinay oo aan rabbi caragelinay ayuu ilaahay hore u tilmaamay qoom uu yiri falamma asafuna markayna carageliyeen baan ka arsanay buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala marka intuusan rabbi naga aargudanin walaalayaal aan tooba keenno aan ilaahay u soo laabano subxaana wa tacaala khayrka iyo wanaaga aan badino markaasuu rasuulku tilmaamay salaad oo salaad lagu sugo salaad lagu sugo waa ribaat yaa ayuha aladiina aamanuu isbiruu wasabiruu waraabituu ilaahay tilmaamay waaye subxaana wa tacaala nafta xakameeya beydka alla ku celiya meeshaad waad istaagi laheeda inta fariiso xataa haddaadan wax akhrisanin oo meesha aad tukataad cisho ku sugto malaa'igaa kuu ducaynaysa sharafta ilaahay kuu yeelay subxaana wa tacaala malaa'igaa kuu ducaynaysa ilaahu dembi dhaaf ilaahu naxariiso ilaahu ka tooba aqbal maa lam yucdid intuusan xadatin intaysan weysadu ka jabin malaa'igta inaad ku ducaysa marabtid miyaa shaytaana bannaanka intuu nageeyo waa noo duceeyaa ducadiisu maxay tahay liyakuunu min asxaabi saciir inuu meesha nageeyo wax kale uu raba ma leh hadda maxaa qiimo ah oo wanaag oon gaarnay salaad baa la tukaday bannaankaa la baxay meeshaasaa la istaagsanaa maqaayadaa la fariistay sheekaa la bilaabay waxa noocaasi waxa laga sheekaynayo alla ka cabsi ma aha ilaahay isxasuusin ma aha wax annagana anfacaya xataa adduunkeena hadduu ahaan lahaa waxbay ahaan lahayd xataa adduun hadduu nagu anfici lahaa waxaan adduunna nagu anficin aakhirana markaa nagu anficin 3 qofood aan laga yaabaa iyo 5 iyo wixii kale inay masaajidada meesha kala fadhiyaan inteena kale meeshaasaa la istaagayaa bal fiiri gabdhii baa magaalada naga mari la waxaan naga mari la hooyooyinkee waxaan naga mari la dadkii meesha soo marahayay waa beydkii ilaahay albaabkiisa subxaana wa tacaala xaaladda noocaas ah rasuulku markuu soo maray sallallahu alayhi wasallam saxaabadii fadhisay jidka muxuu yiri iska ilaaliyo jidka ha fadhiisanina warka kaca jidka waxaan idin kala digayaa idinka iyo fadhiga suudaadka la fariisto rasuulka allah kama maarmi karnay dhaheen waa ku sheekaysanaa waayo hal qol baa la deganaa maanta qol jiif iyo qol fadhi iyo qol wax iyo qol tv iyo qol waxa iyo qol noocaan iyo qol waxa la leeyahay laakiin xaaladaasay ciriiri ku ahaydo banaankan isaga sheekaysana allah ku xusna haddaad iga diideen ilaa fadhi maahe waaye fariista laakiin jidka xaqiisa siya buu dhahay nabiga jidka xaq buu leeyahay walaalayaal xaqa jidka maxaa kamid ah indhaha oo la laabo
maxaa kamida bay dhaheen waxa la yiri salaanto la ridiyo maxaa kamida dhibka oo la celiyo maxaa kamida macruufka oo la amro munkarkana la reebo munkarna ma reebno macruufna ma amarno indana ma daboolno dhibna ma reebno salaadna ma qaadno ayaga isku mashquulsan ba fadhi ku dir way dhacday iyo ma dhicin buu ku mashquulsan yahay hadda salaamu calaykum dhahdo laga yaabo marka laamiga gaartino calaykum salaam dhaho waa suuragal xaaladda dadna oo fisqiga iyo xumaanta heerka ka gaaray si wanaag iyo horumar loo gaaraya walaalayaal aan aad iyo aad u soo laabano ilaahay aan u soo rujuucno subhanahu wa ta'ala waad u jeedaan nimanka tadba loo sameeyay fisqiga iyo fasaadka adduunka ay ku wadeen fasaadkan wax badan iska ilaalino dumarka hanaga amaan helaano wax badan aan iska ilaalino waayo inay dhibaato gaarto in mashaakil waxyaabo kala gaaro rasuulku aad buu uga digi jiray sallallahu alayhi wasallam ragga in badan buu kala hadlay nabiga dumarka sallallahu alayhi wasallam dhibaato baan baa jirta mashaakilaadkii fasaadka faraha badan baa jira gabar baa la iska guursan waa laga tagayaa tuba si kale la yeelaya waa la dhaafayaa tu alla mehriyay meher lama siinin waxyaabaha haddaan gadaash isugu soo noqono xataa rag ahaanteena marka la fiiriyo dhibaato fara badan baa jirta mashaakil adag baa jira waxyaabo fasaad oo camimaya arladaas markaa jirta magaalada waxyaabaha ka taagan ilaahay inaan istighfar uga weydiisano dhaqankeena aan wax ka bedelno waa shay muhiim ah oo aad iyo aad loogu baahan yahay sababtu waxay tahay waa ducafo sababtu waxay tahay waa dad tabar daran waa dad iska daciif ah waa dad ayaga u baahan in la xanaaneeyo markaasaa tuug walba iyo beenlow walba oo been u sheego sheeka ku soo qaada habeenna casha ka bixi run bay moodaa markaasay iska raacdaa markaasaa lagu ciyaara markaasaa dhib la gaarsiiyaa markaasaa mashaakil badan inta dumara ee cawanaya oo dhibaato sheeganaya waxa waaye cadad iyo tiro markaa ma laha oo waxyaabo aad iyo aad u fara badan waa mashaakilaad ka jira ilaahay hortiisa la tegi doonaa walaalayaal war waa la xisaabi doonaa iyo ogaada war fasahaad fara badan ma wanaagsana ragoo rag qiimo badan noqda min almu'miniina rijaal buu dhahay ilaahay subhanahu wa ta'ala war ilaahay u run sheega war waxaad ilaahay ka ballan qaadeen u dhabeeya war waxa diinku camal falka aad ugu dadaala ilaahay subhanahu wa ta'ala khayrka iyo wanaaga wuxuu siinayaa qof allaala qofka khayrkii wanaaga saa ugu socda dumarka aad iyo aad alla isaga ilaaliyo war ilaahay ha looga baqo subhanahu wa ta'ala meheradooda ha la iska siiyo mid kasta intaad caafad gooniya ku guursato oo aad isaga tagto oo aan waxna la siin oo aan laga daryeen oo aan waxba lugeenan dhicin walow aan hore u soo tilmaanay in dadka gobolka midoway ku heshiiyaanba in la isqarsadaan iyo waxyaabo noocaas oo kala ah xaaladana aadaan ugu dadaalno qofka noogu fiican ee rag ahaan noogu wanaagsan waa kee waa midka inta raba inuu lacag labaad guursado lacagta labaadna tii koowaad asagoo qaba ta labaad sheekada ee shukaasiga uga bilaabaan in ag ma qabi kaasaan noogu fiicanba kaasaan dhihi karnaa waa rijaal inta kale way kasii liitaanba waana kasii hooseeyaan xaalad noocaasaa jirta meelahaasaa laga sheegaayay wuxuu yidhi waxaan qaba ma laha wuxuu yidhi aniga wax aan leeyahay ma laha xaaladdaa markuu sheegay uu gabadhii weyneydna ka qariyey ta labaadna uu kula heshiiyey ilaa wax soo baxaan yaan bannaanka ku dhigi maayo arrintaa ogow yaa habeenada ka mid waxay tiri casho ii raadi cashadii buu u soo raadiyey suqaarkii iyo wuxuu wadaa iyo baastadii iyo waxyaabo markaa u waday tii weyneedaa ka soo horbaxdayba muxuu sameynaa suu u waday buu qashinka ku riday baa la yidhi suu u waday bacdii oo dhan suqaarkii hilibkii alaabtii ku jirtay qashinkuu ku riday war waa maxay leetir waxa qashinkaa ku riday waxaan meesha aad ku riday maxay yihiin qashinka jidka ka soo qaaday wir meesha aad ku riday goormuu qashinka qaadi jiray intaas isli deganaa marka dhibaato fara badan baa jira ragow ilaahay inaan u soo rujuucno rabbi aan u soo laabano fasaadka arlada aan ku wadno ku camimayno aadaan isaga ilaalino waayo qof kasta qayb buu arlada ka fasahaadiyaa kii salaad la'aan ku fasahaadiyo kii been ku fasahaadiyo kii dhacdadii hadda aan ku fasahaadiyo ku mataqaana been iyo waxyaabo kale ku tilmaama gabdhaha ilaahay subhanahu wa ta'ala inay ka cabsadaan ayaguna waa shay muhiim oo laga maarmaan ah ayaga laftigoodu dhibaatadoodu ma yara shartoodu ma yara saadarteed aan dhammaanteen bi ilaahay u soo wada rujuucno maanta qof eedeyn kara ma laha qofaan qof eedeyn karin waayo waxa aan tilmaamayno iyo waxa aan ka hadlayno bannaanka haddaad u baxda hadda waxa ugu horeeya ka hor imaanaya
beritii labaad baad arkaysaa hal maalin baa laga yaabaa 3 dhacdo inaad markaa aragto oo arrimooyinkan ka hadlayna markaa ku tacalluqay hoos yaala haddii inta la sameeyo oo aan isku soo gurmano oo ilaahay subxaanahu wa ta'ala tala saarano oo khayrka iyo wanaaga aan badsano horumar iyo wanaag baan gaaraynaa adduun iyo aakhiro fasaadka walaalayaal war fasaadku ma wanaagsana war ummad baa lagu halaagay ilaahay baa ummadda ku naca ilaahay baa ummadda ku halaaga ilaahay yaa ummadda ku fogeeya si ilaahay uusan noo fogeenaan ugu dadaalno oon ugu dhawaano ilaahay fasaadka ay diiday arladana uu ka mamnuucay aan iska ilaalino wala tufsidu fil ardi ba'da islaahiha arladan islaahinteeda kadib ha halaynina ha ku xadgudbina waxa dhibaato ha ku sameeynina ilaahina u tuuga subhanahu wa ta'ala baryaha allah looga badbaadaa ilaahay baryihiisa lagu faktaa ilaahay baryihiisa umadu ku badbaadaan wad'uuhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun min almuhsinin hadan muhsinin noqono ilaahay wuu noo dhawaanaya naxariistiisa way noo soo dhawaanaysaa maxaa ilaah subhanahu wa ta'ala nabigiisa markuu tilmaamay wuxuu ku tilmaamay dadka badbaadaya horumarkii qiimahana gaaraya waa dadka islaahin doona waxay dadku haleeyaan waxay ummadu haleeyaan aan islaahino meeshii ay wasaqeeyaan aan nadiifino meel allaala meeshay xumaan ku sameeyaan aan wanaajino aan wacdiga iyo waanada badino ummadan wacdigi waanada hal lagu badiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qulubtu wuxuu ka dhigay qulub loogu talagalay dhikriga ilaahay in lagu jilciyo fadhakkir in nafa'ati dhikra rasuulka lagu yiri waanadaadu way anfacaysaaye fadhakkir bil qur'ani man yakhafu wa'id qofka wa'idka ka cabsanaya qur'aanka kuwaani rasuulki ilaahayo hanjabaadka midka ka cabsanaya qur'aanka kuwaani fadhakkir inma anta mudhakkir lasta alayhim bimusaytir illa man tawalla wa kafar inta soo dhan waxay tilmaamay in ilaahay subhanahu wa ta'ala na amrayo umadan inaan dhexgalno waxay haleeyaan aan hagaajino waxay ku ciyaaraan aan sameeyno tii xijaab qaadan way sahaba ku caysee wax badan bay dumarku dadku caayaane in la dhaw walaalay sida ma aha wiilkii waxa leeynay la dhaw warsaa ma aha rabbiga ka baq subhanahu wa ta'ala ka salaadatu kanin haddaad adigu mutaqaana dhibaatooga baqayso mid allaala midkii aad isleedahay ama wax ka yeela way rasuulka sallallahu alayhi wasallam tusaalaha uu nasiiyay waxa kamid midka qaa'imka xuduuda alla ku taagan ee midka waaqici marka ku dhacaya inay iskala mid yihiin qoom doon u qoryo tuurtay qoryo tuur baa la sameeyay doon laba dabaqa qorana kor bay heleen qolana hoos bay heleen qolada hoos heshay markay biyaha ka waraabayaan maxay sameynayaan kor bay imaanayaan markaasay wadaantoodu tuuranayaan biyii bay soo qaadanayaan dadkii koray la soo marayaan hoos bay markaa la tagayaan dadkii hoosaad tala qaatay habeen bay dhawarkaalay aan shirne maxaa laga shirayaa haddaanan dadka kora dhibin kabaran bay dhaheen doonta oo nasiibka biyana hoos ka duleelsano intaan bax soo qaadana bir hal la duleeliyo deento dhan marka hoos aan ka qaadana biyaheena maxaan masaakiinta kor u jiifa marna madax uga istaagayna marna biyaha uga shubayna marna dhibaatada aan sameynayna maxay rabaan inay doontii duleeliyaan rasuulku muxuu dhahay marka sallallahu alayhi wasallam dadka kore haday ka aamusaan kuwa hoosi waxa ay doonayaan way shibka dhahaan doontii bay duleelinayaan biya soo galaya halaku jamiican wala wada dhimanaya biyi intay hoos galaan doontii ay degto yaa la wada dhimanaya saalihi kii qaadiga ahaa kii fiicna kii xuma dhamaan biyaha qaadaya yaa soo maxaa soo haray haday gacanta ka qabtaan kuwaasi waxay doonayaan war doonta nagu duleelinina annaga raali idinka ahna dhiba nagu joogsada biyaha nagu daadiya raali baan ka nahay macnaha maxaa loola jeedaa dhibkooda inay u adkaystaan fasaadka ay sameeyaan ay dhex galaan ay dhaan walaalayaal joojiya war rabbigiin ka cabsada war adduun baan joognaa adduunku waa dooni macnaha waa baddi doontuna waa wixii lagu gudbi lahaa amalkii saalixa ahaa amalkii saalixa hadii la waayo see loo badbaadaa ma jirto walaalayaal saadarteed aan ilaahay ka cabsano khayrkii wanaagana ku dadaalno aan noqono ummad diinta iyo taacada ilaahay ku dadaasha fasaadku aad buu u farabatay qof walba naftaada gadaal ugu noqo qaybtaad kaga jirta fasaadka iska ilaali kana tawbakeen ilaahay subhanahu wa ta'ala si uu khayr iyo wanaag noo siiyo allah xaq waxaan ka baryaa inuu xaqna waafajiyo taacada iyo diinta ilaahay ha nagu sugo subhanahu wa ta'ala ummad khayrkii wanaaga ku dadaasha allah naga dhigo rabbi subhanahu wa ta'ala inta xanuunsan caafimaad taama allah siiyo
انت كربيسن كربده الله كفيدو فسادك يا نغبت الى فسادك هنغا الى فسادك هنوغا غرغارو الى دخدينا فسادك كو صار الى هنغا دغ سبحانه وتعالى انت وح فساد الله سو هنونيو انت فساد كسعتا الى هنونك تصيو انت تارك الصلاه الى سو هنونيو ان الله لا انت حماني معاسي كجتا الله كسو هنونيو انت خيرك وناغا كسعتا الى كو ونانيو الى كسي هنونيو خيرك وناغا الله كسي سغو انت مراد له مراد كودو خير الله اسقرو انت حنوسن marka caafimaad الله سيو إلهي سبحانه وتعالى وحن كرجيننا غيرك وناك إنه نوافجيو إلهي فسهادك إنه نقبته قبلها دأذي عن صوت المعنى إلهي هنونيو كو دينت خيرك وناك كسعود الله نوغدغو ضمانتك إلهي خيرك وناك هنوافجيو إلهي سبحانه وتعالى عررت الله نو إصلاحيو انت كهلابين الله أسوب بنونيو انت وهنونسيين الله أسي تاميلو انت نهيسن عرر عافمات قبتو باريال دينت على نكو دقنت الله سيو سان خير كان وناك اوغو كلني إلهي جنوينكيس فردوس نعيمة إيميلها لميتك الله نقول كل ميو اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين وبالله التوفيق والله أعلم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الله أكبر.